deeqaha waxbarasho waxaad ogtahay waxaa bixiya inta badan dowladaha caalamka oo dhan waxay bixiyaan deeq waxbarasho. Sidoo kale deeqaha waxbarasho waxaa kaloo bixiya hay-ado oo qaarkood diini ah iyo qaarkood hay-ado gargaar ah, ama waxaa kaloo waxbarasho bixiya bangiyo. Marka intaas hay-adood iyo dowladood bay bixiyaan. Marka annaga Soomaali ahaan la fiiriyo dowladaha ugu badan scholarship ardada Soomaalida ay ka helaan. Haddaan u noqono sanadihii ugu dambeeyay wixii burburkii ka dambeeyay sanadihii 90meeyadii waxaa u badnaa wadamada ugu badan ee Soomaalida ka heli jireen scholarship waxaa u badnaa Suudaan. Waxaa soo labeeyay wadamadan Asia sida Pakistan oo kale oo laga heli jiray safaaradda Pakistan scholarship bixin jirtay. Sidoo kale wadamada Malaysia oo kale waa xilliyada dambe iyadana waxaa laga heli jiray scholarship. Sanadahan hadda ugu dambeeyay wadamada scholarship-ka laga helo oo dowladaha ama jaamacadaha oo meelaha ku yaala scholarship-ka bixiya waxaa kamid ah waxaa ugu badan wadanka Turkiga oo laga bilaabo xilligii Turkiga Soomaaliya imaadeen oo xilliyada abaartii wixii ka dambeeyay ay noqotay il kaliya ma ahan dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga, laakiin waxay noqotay il kale oo waxbarasho. Arday badan oo Soomaaliya waxay chance u heleen inay wax ka bartaan. Marka waxay leeyihiin scholarship-yo oo kala nooc ah. Scholarship dowladda ay qaado oo Turkey Bursura ay dhahaana jira, iyo scholarship kale waxaa jira oo imtixaanaadka ardayda ajnabiga laga qaado oo loo yaqaan YOS. Marka tiro aad u badan oo scholarship oo Turkiga Soomaalida ay helaan way jiraan. Sanadihii ugu dambeeyay for last 2 years 3 sano 2 sano ugu dambeeyay scholarship wadamada laga heli jiray waxaa kamid ah wadankan Ethiopia ee arday qaar aadi jireen loo marin jiray wasaaradda waxbarashada ama hidaayada tacliinta sare. Sidoo kale waxaa jira wadamo badan oo scholarship bixinayay oo hadda aan ka soo tagay sida Urdun oo scholarship na siin jiray oo arday tagi jireen, Bangladesh oo arday scholarship loo diri jiray. Marka wadamada scholarship-yada laga helo aad ay u badan yihiin intaasaan soo sheegnay iyo in ka badan bay jiraan. kolleydii dowladaha iyo hay'adaha bixinaya waxay ku xirnaanaysaa hadba meesha la joogo. Soomaaliya markaan eegno dee hay-ado badan baa jira oo deeqahaas waxbarashada bixiya oo hay-adahan khayriga ama samafalka iyo horumarinta aadanaha waxyaabahan la yiraahdo ka shaqeeya ah. Wadamo dhowr ah way jiraan oo Soomaalida si gooni ah uga warhaya oo deeqa waxbarasho siiya. Waxaa jirtay Masar, waxaa jirtay maaragtay Suudaan, waxaa jirtay Turkiga, ilaa haddana wadamadaas qaarkood way jiraan. Wadamo kale oo Yurub ku yaalana way jiraan oo Ingiriisku ka mid yahay oo deeqahaas waxbarashada dhiiba. Hay-ado badan oo caalami ah oo si kala waxbarashada dadka u siiya hadday ahaan lahayd midowga Yurub iyo hadday ahaan lahayd kuwan Mareykanka waqooyigiisa laga leeyahayba way jiraan meelo badan waxbarasho laga helo.